ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن أبي داود وعير هذا الشيخ ولا تعتقد عقيدين رأي الخوارج خوارجته رأي قودي أركتدو ذها عقيدين إنه محايل رأي خوارجه مقال أراه هذا الوي لمن قفك يهواه الراعة وجعلاده يردي وهلاقا يردي وهلاقا ويفضح وانا فضحوبا ولا تكوهنا أهان مرجيا مد مرجئها النقن مرجئا سولعوبا كعيار بدن بدينه دين تيس كعيار بدن ألا إنما المرجي محايا لك المرجي ألا إنما المرجي ورمتك مرجئا أهي يمرحوا حكود ديلا بالدين دين تأيو كعيارا وكجاس جاسا وقلوا حدنتر هذا إنما الإيمان إيمانكم قول هذا الوي ونية هي النية وفعل هي فعل قولك هي النية هي فعلك مصرح ومثل مصرح وحال لغو عديي على قول النبي صلى الله عليه وسلم نبا هذا الكيسين والسدى إيمانك وياه وينقص إيمانك يرادا دورا مرمر بسبب المعاصي معاصي درته وتارة مررنا ينمي كردا وإيمانك وبتا بطاعته أي بطاعة الله إله أضيعتان كيس ويرجح ونكون راجح نقضاء في الوزن ميزان كجودهيس ثلاثة كان غلط. طيب الشيخ وحكاه الله بيتك وجهر ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح وحكاه الله عقيدة الخوارج خوارج عقيدة ذولا أي الشيخ كورمي عقيدة الخوارج مركوجه الرئيس الخوارج الشيخ وحو كنت المامي عقيدة ذو إني رأي تهي لأن واحد دليله ويكوقة طلع ما أركو مركوحو ذو عقيدة ما أهان هو الرأي يا أركتي يفكر ويان يا عقيدة ما خوارج لبا سببات با خوارج لوغو مغعابي كو علي بيكون بحين رضي الله عنه لبا وحي كبحين سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وجماعة المسلمين تيمدنمة المسلمين تأي فاروقين سيدا بمركا خوارج كل نقدين أسألكود نوحوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقت جيسي واتي مسلمين تا دقال الله أي دحمرين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين لما أنتوا تبع الله كره النقض دقال الله قامين ينبى مسلمين تكدح دعي
kadib waxa la isla ogolaaday in la wada hadlo oo qadiyadiya waxa la isku haya loo saaro dad garsoorayaal ah oo labada dhinac ee muslimiintu ay ka xaakim dhigtaan oo ay yiraahdaan na kala xukuma oo xukunkiina waxa aad soo saartaan ayaan ku qanacsanahay sida markii la yiri ayaa qolo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu raggi marka u muuqday inay la socdaan kamid ah ayaa dhinac u baxay gees bay isu sooceen dadkii intii kale ka soocmeen meel gaar ah ayay isku aruursadeen waxay ahaayeen dadku markii la fiiriyo dadka dhexdooda dadka ugu cibaadada badan bay ahaayeen ugu quraan akhriska badan markii wajiyadooda la arko iyo quraan akhriskooda iyo khushuucooda aad bay u booyin badnaayeen u quraan akhris badnaayeen u salaad badnaayeen u soom badnaayeen wajiyadooda cagaf bay noqdeen way adkaadeen min kathrati sujuuda faraha badan darteed dhinac bay u baxeen markay soocmeenna waxay ku gaalnimo xukumeen Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu oo khaliifadii muslimiinta ah waa gaal bay yiraahdeen waa gaaloobay Ali wuxuu u diray ibn Abbas baa loo diray bal tabashadoodii waxay sheeganayaan si loo soo ogaado waxa iyagu ay tabanayaan ibn Abbas radiyallahu anhu ayaa loo diray ibn Abbas markuu u tagay ayagoo quraan akhrisanaya oo aad iyo aad u cibaadeysanaya ayuu u tagay markuu tagay ayagiiba isqabtay dhexdooda qaar waxay yiraahdeen ninkan aan la hadalno oo dhageysano waxa uu sheegay qaarna waxay yiraahdeen may yaanan dhageysan ninkan reer Quraysh buu ka mid yahay reer Quraysheedna alla wuxuu yiraahday bal hum qawmun khasimun waa dad muran badan marka ninkanna Quraysh weeyaan ayaga hal saxaabi kuma jiro hal qof oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la kulmay kamid ma aha qofka ay sidaa u xaqirayaan oo ay leeyihiin wuu muran badan yahana waa kuma waa mufassirkii quraanka nabigu calayhi salaatu wasalaam u duceeyo yiraahdo allahumma faqihu fi diin wa 'allimhu ta'wiil markii dambe niqaash bay la galeen inay waraystaan ayay qaateen marka waayuu ku yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam in adeerkii maxaad ku haysataan saddex baan ku haysanaa bay yiraahdeen saddex khasladood mid baan uga gaabsanaynaa kow waxay yiraahdeen xakama arijaala fii diin illaah diintii ilaahay ayuu rag xaakim uga dhigay oo wuxuu yidhi hebel iyo hebel ayaan xukunkooda ku qancaa allana wuxuu leeyahay in ilxukmu ilaa lilaah xukunka alla unbaa iska leh asaguna wuxuu yidhi hebel iyo hebel xukunkood iyo wixii ay soo gooyaan baan ku qancaa marka agtooda waa daaquutnimo waa inuu u xukun tegay waxaan kitaabkii ilaahay ahayn sidaas bay u macneeyeen jawaab yar buu siiyey wuxuu yidhahda ma ogtihiin haddii ninkii iyo xaaskiisu isqabtaan ilaahay inuu faray in xakam loo saaro laba garsoora in loo bixiyo oo ayagu ka soo arrimiyaan qoyskaa isqabtay inay sii wada joogaan ama la kala diro haabay yidhahdeen waa ogna wuxuu kaloo weydiiyey
ugaar xaramka lagu dilay ayaa ilaahay wuxuu u saaray in la qiimeeyo ugaarta xurmada ay leedahay darteed in la qiimeeyo ugaarta waxa ay la eg tahay oo fidye ah oo qofkii lagu ciqaabi lahaa in la qiimeeyo oo loo diro laba qofood oo cadaalad ah taana ma ogtiin haa yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadiyan baaliga alkacba tii horena wa in khiftum shiqaaqa baynihima fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha marka hadal wuxuu yidhi nuxurkiisu u ahaa war qoys isqabtay isku dhaqidood iyo qoolay xaramka lagu dilay ka talinteed in la ogolaado in xakam loo saaro muslimiinta dhiigooda qubanaya badbaadintiisana la diida in xakam loo saaro ma sax baa alla ilaahay ma yidhaahda sax maaha sax maaha mid kale ku xijiyeen oo waxay yidhaahdeen cali dadka uu la dirirayo oo mucaawiya jaanibkiisa ah ma xoolahoodana ma qaniimaysto oo xoolahooda ma qaato dumarkooda iyo carruurtoodana sabyi kama dhigto inta la qafaasho qaniimadii laguma daro dumarkooda iyo carruurtooda wuxuu yidhaahda jaanibka mucaawiya waxaa jira waxa ka mida caaisha ka mida buu yidhi waana mu'miniinta hooyadooda waa xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad tidhaahdaan caaisho ayay bannaan tahay in sabyi laga dhigtana waad gaaloobaysaan way aamuseen maxaa kale buu yidhi waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa amiirkii mu'miniinta madax u ahaa wuxuuna ku raali noqday in amiirnimadii iyo magicii mu'miniinta inuu madax u yahay in la tirtiro hadduusan muslimiinta madax u ahayn fa huwa amiiru lkaafiriin baynaan gaaladu madax u yahay fiqhi xumaa fahan darrada fiiri markaabuu wuxuu yidhaahday qiso u sheegay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiskii xudaybiye uu gelayey suhayl ibnu camri markuu heshiiska la gelayey heshiiska waxaa nebigu sal ly slam cali baa qoraya waxa la yidhi waxaad ku qortaa bismi illaahi araxmaan araxiim qor u kaadi bay yidhahdeen arraxmaan araxiim ma naqaanee bismika allaahuma ku qor nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi halla tiro bismika allaahuma lagu qoray wuxuu yidhahda rasulka sal ly slam waxaad ku qortaa kani waxay ku heshiiyeen weeyaan muxamed oo rasuulullaahi ah iyo suhayl ibnu camr suhayl wuxuu yidhi haddaad rasuulilaahi taha kuma diidinan xaramka ilaahay kumana celineene annagu maxamed ibni cabdillaahi baan kuu naqaan haddaad rasuul sheeganaysa heshiiska waan ka baxaynaa maxamed ibni cabdillaahi noogu qor nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu ku tiray rasuulullaahi marka haddii cali amiirulmu'miniin uu iska tiray uu amiirulkaafiriin ku noqday rasuulka ilaahay magiciisa rasuulullaahida uu tirtira muxuu ku noqonayaa ayadana waan ka qanacna bay yidhaahdeen ilaa 10,000 bay ahaayeen 4,000 baa ka soo laabatay ayaa la yidhaahdaa nimanka cibaadadii faraha badneed iyo salaadii faraha badnaa iyo soonkii faraha badnaa iyo qur-aankii tirada badnaana waxba uma tarin ayaga nabiga calayhi salaatu wasalaamna hore u sii sheegay oo nimankan rasuulka sal alla alay wasalam baa hore uga sii digay digniin nabiga sal alla alay slam uu ka diga baa jirtay iyo boorrin uu boorriyey khawaarijda in lala dagaalamo boorrin nabigu calayhi salatu wasalaam uu boorriyey tuubaa liman qatalahum aw qataluu janna waxay u sugnaatay qofkii ayaga dila ama ay dilaan lain adragtuhum laaqtulannahum qatla caadin wa hamuud haddii aan soo gaaro marka ay soo baxayaan waxaan u layn doonaa laynti sidii ree caad loo baabi'iyo kale qatla caad
sidaas ayaan u baabi'in doonaa marka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dagaalka kuma bilaabin ayaga bilaabay inay dadaalkii la diriraan oo saxaabigii la dhihi jiray Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat ayay dileen marka kadib baa Ali la diriray radiyallahu anhu aad buuna u xasuuqay u baabi'iyay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii xilligaa ka noolaana aad bay ugu riyaaqeen la dagaalankoodii firaqda muslimiinta ama kooxaha muslimiintana khawaarijtu waxa weeyaan qolada ugu sharta badan ama qolyaha ugu sharta badan bay ka mid tahay firaqda muslimiinta haddii muslimiinta raafidada lagu tiriyo hadda raafidada ka shar badan haddiise raafidadu gaalada la haleeshiyo waana sida raajixa inay gaalada haleeshan yihiin فرق المسلمين وحا ugu shar badan al-khawarij culimada muslimiintuna khilaaf bay ka keeneen khawarijtu magaala masawa muslimiin akthar ahli al-ilm ama jumhuurta wuxuu ka soo gurinaya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah inay yihiin muslimiin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saniiciisa iyo dhaqankii uu sameeyay markuu la dirireen waxay tusinaysaa inuu san gaalaysiin laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis uu ku tilmaamay cirka hoosti wax ku nool oo dhulkan ka koreeya inay ugu shar badan yihiin khawaarijtu kilaabu ahli naarna waa yiraahdaa nabiga sallallahu alayhi wasallam eeyaha naarta weeyaan buu yiraahday marka mabaadi marka waxa jirta sifaad ay leeyihiin khawaarijtu maadaama waxoodu aragti iyo fikir ay yihiin weligood isma haysan markay ayaan joogaan boqolaa baxda inta kale gaalaysiida qola kala hadana ka sii baxday intii baxday inta kale gaalaysiida weligoodba laba arrimood uma kulmin in ayaga koox ka midihi ay wada jir noqdaan ay midaysan yihiin ma dhicin waxaan kaloo dhicin in ay awood adduunyada ku yeeshaan ayadana ma dhicin mararka qaar way dhacaysay meelaha qaar in sawlo iyo jawliya awood ay ku yeeshaan laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullama tala'a lahum qarnun quti'a mar walba oo gees u soo dhasho waa la jaraa ayuu lahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam khawarij ila kuwooda ugu dambeeya masiix dajaal ay la soo baxaan oo marka asaga ay rumeeyaan ilaahnimo u rumeeyaanba al-khawarij marka afkaartoodu waxay ku dhisan tahay saddex qodob sida Sheikh Salih al-Fawzan iyo culimo kaleba ay tilmaamayaan saddex arrimood baa asal u ah fikirkooda saddex buu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay khuruujka iyo la dagaalanka muslimiinta inay ku baxaan madaxda muslimiinta inay ku baxaan oo Ali radiyallahu anhu wa qablahu Uthman ayayba ku baxeen oo waa ku Uthman dilay radiyallahu anhu ardaa Ali sidoo kale ugu baxeen marka fikirkooda waxa asal u ah ama asaas u ah al-khuruuj madaxda muslimiinta oo lagu baxo lala dagaalamo waa koow labo waa at-takfiir waa gaalaysiin wax nusuus aan ku qotomin madaxduna asal ay u tahay waxa la gaalaysiinayo takfiir al-hukam طيب إيوه نعم ونسيد يكي صدحات والخروج إيوه نعم لا دقالن كمسلمين استحلال دماء المسلمين ضد كمسلمين تلي جودة إنه حلاشيستان مدحضة كوبحان إيوه قاليسينت إيه قاليسين صدح ذاسي كم إذا يسمعي أيجي بمركها لقى يابا إنه إسقاليسيا أيجي بلقى يابا إنه إسقاليسيا شيخ مركه وحو كعبري فكر كود إنه رأي هي أركتي إنه يهي رأي
وانا سيده صحده ولا تعتقدها عقيدين بير رأي الخوارج خوارج الرأي جود عقيدين إنه خوارج الرأي جود مقال أراه ويا لمن قفك يهواه جعلاده الراعة يرديه هلاقا ويفضح قفك أنه فضيحه به مركا أيق ما يقنن مجاملة يسقرين يمين ما يقنن قفك بهدور رأي خوارج أوقاته هرو كفضيحه به يبنانك إيمانيا مركا أبا الشيخ وحيد هذا ولا تكن مرجيا مرجئ النقل لعوبا بدينه دينتي سكون ديلك بدن ألا إنما المرجي كالمرجئة يمرح نسخ ذكر يمزح باكوت الله وحو كل جس أو كل عيارة بالدين دينتي مرجئة المرجئة خوارجته شيطان كورت لما مسلك أي قفك كسوقلا لما وضوء جي ماذا قفك إنه يرادو صلاة كتك صوم كتك بين شيك توق نقو وحان سمي هدو كأتكاد أو دنك قفك وكوكري واي دنك لو كسوقلا أو إنه ترحتك سمي حد قدبو سمي هاي واجباتك كددال سي واجباتك أي كوكو سقنادان أو واجباتك لما تابتان أي كون نقدان وإن السنوينك كدداشا سي سنوينك أي كوكو سقنادان وح سنوينك كديري بالله إمام oo waxa ilaahay jideeyay aan ahayn marka sunnadii bay difaac saad sunnada ay kugu noqoto muujeedan meesha qofka shaytaanku gaarsiin wuxuu ku riday quluwi xad gudub inuu ku dhaco oo waxa la jideyn uu la yimaado dan kale qofku marka quluwiga iyo xad gudubka uu arko ayuu shaytaanka xad gudubka markuu tuso qofkan wuxuu leeyahay xad gudubka waxa looga hortagi karaa xad gudub la'aan tuwaase waa cirifka kale inaad tagto عرفك كلا إن أعتقد أو خوارجته هذي لهاين قف كان الدم بوين هدو كله دينتي إسلام كبنانكو كيه وقالوا قلنا المحير هذين قف جبهرت ما الشهادة أما أفقه وقد واقع وكان فوقيه أما بقلبك هكجرته مربى هدو إلهي جريتان كيسو رميسيه معصية والبي الدم والبوق على إيمان كيسو حكمت دبان أعماشها كو صهرتي وتارك الصلاة وتو وخمر يعب بلا يرضى وزاني بلا يرضى بكل صدي قف كنوع عاسى يا جبريل واسكو إيمان بين هذا الإيمان كود وسمسم وسميه ويأجيه وحيالها الله يبكى وحكم إذا ها علماء يسوق جوريان نين قلنا المرجئة ذا كم إذا أيا نين خمر عباية والسرخان صنبو صامري كي خمرك عبي أي عاي نكي مرجع جابو عاي مركز روحي وجوابي ورانيك أساس بيادي وأبال قدي مركان أديك إيمان كاجادو خمر عباية أنا اللي واحد كو إيمان تاي جبريل مياد أنيك يقول أبال قدي نادي عايز يعني طرفوين كعلماء أي شيء قام بكم تاي مرجئة مركز أصلهان من وحي كتميد المرجئة ودبدجت من الإرجاء دبدجت آيات القرآن كهذب تسنى قالوا أرجي وأخاه أسقي ولالك أرنكو ذا قلال مري دبودك مركا إرجاء بمعنى التأخير ودبدجت أو محي سمين وحي هذا إيمانك قفك الله قربه كمد معهن أعماش وصلاة إيمان معهن وصومك إيمان معهن وزكاة إيمان معهن وصدقة إيمان معهن إيمانكم محوية هالليلة أيها قلنا هالكاسيات قلنا هالكاسيات قلنا قلبيت بيد أفرجها وكلا بيحن دون بقى سببتم حياتها لأن وحود دليلكم الإسلام فكر ويان وحو هدينا دليلكم الإسلام اسمه وافق كرام مركا قال وحيت الإيمان كوا قرش إلهي جريتان كي سادات قرته مؤمن باطل هل قام حاكا دشي وركو ذا هدين لقات إبليس محوية ومؤمن سيد جبريل وكلا إبليس وركو ذا قلا ذا هدين لقات ومرجئة دي ومحي ليه صوت محيتها لأن إبليس محو ليه فبعزتك لأغوينهم أجمعين صومله سو إلهي يكون دارا ماي إلهي وقرنا لكن مرمين وسجرناي معرفة مركا فرعون محو نقنايا مؤمن بو نقنايا إيمان له
قار بابا كتب كقربة الله يا بنين إنه فرعون مؤمن أيها كمل سببته محيطهاي لأن قف كان هرت إلهي مقرته يوميا كان ألا إنه جرها مؤمن وين قال أنا واحد ترمي قلبك إنه كرمي ولو عربك يقولون دواقنه قلبك بهدو كرمي ومؤمن كامل الإيمان معصية الذنب يسمينا وحبك هدي بمايا معصية الذنب يسمي وحبك هدي بمايا قال أنا واحد ترمي وعربك إنه قد دواقه قلبك بيقولون كرمي هدو الرب منافقين تمرك محين نقنيا مؤمنين أبو بكر يا عمر لميدا أبو بكر يا عمر لميدا ومرجاني قال أنا وحي هذا الماء ذنبك هو حرام لكن إيمانك كمد معهن أعماش إيمانك كمد معهن أعماش إيمانك كمد معهن الذنب حرام أصل كإيمانك ضدك وإسقامت أبو بكر يا عمر يمينك فاسق يا خمرك عاب شارب الخمرك يا واحد إني حرايه يا أبو بكر يا عمر أصل كإيمانك وإسقامت بينيهن انت بنا وأقوال باطلة ويا سببته إيمانك قفك لجربا وإنه اعتقاد وإنه ليه قلبي وكرم يسيح كو ونيويا وإنه كل واقع أعماشنا وإنه وحص الرميسا هذه وح عمل بقفك ولا لا إيمان إنه تارك صلاة وياها صلاة دي بأن دكني هذا الله يعني إيمان كيف أوجر الله ما به كرم أما إيمان كيسي هذو أنت قلبك كرم عربك كلام هذا أعماشي وحكم إذا وكتجو إيمان كيسو يا إيمان كي أبو بكر أصل كوي كسبني لما به كرم وقف فاسق بل له قف كاني قف فاسق ويا خوارج دي أيجنا هل عذر باكو وضع دعي قالوا والبنا ما دام وحد أي رأيهني أركتي قالوا والباه عذرك داودي سيبي ملحن كرادس عذرك كو وضع دعي وحو يهي إيمانك إنه هالشيء يهي وأما أسقوا بوحوذ جوجي أما ماشي كوضع مقناني مرجئة يا خوارج طلبات إيمانك وحي يرادين وهالحبو وهالشيء اسكو حران قيب من نقون كرم إنه وذا جوجه ينو ماشي كمقيه خوارج محي تري قفكو هدو الدنبي وين قالوا إيمانك ما جوجي كرم وكوضع بحي قفك مرجئة محي تري قفكو هدوبا إيمانك مرهيستي حمان سمي إيمانك وحمو ما دي بكرت إلا أن إيمانك أكتوذ ما يرى هذا ما يرى هذا ما نبط وواضح أنه ملينا ومرجئة دي المرجئة طيب أهل السنة عقيدة ذو محيطهاي إيمانك واعتقاد قلبك لقى عقيدة عرب كان لو قد واقع أعماشنا إيمانك كمتهاي من مسمى الإيمان بكمتهاي الأعمال من مسمى الإيمان لكن أعماش الإيمان كما شرط بيوتها وشرط صحمية ما سوى شرط كمال وحيابا نعاسه كهدلان خلاصة وحيتها لكن إلا يراده أعماش وحكم إذا وح إيمان كشرط صحاء إيه وحن شرط صحاء هين أعماش ويكجران طيب وإيمان كونا أنسحين عملك على أنتيس كالصلاة مثلا على القول الراجح سيدا الصلاة وكلا قولك الراجحة لأنتي ما أنصحي طيب أعماش معاصدة كلا أعماش قفك هدو كتغو إيمانك سكردين يسي أهل السنة محي ليهن إيمانك قفك يرانيا هدو حمانتي لقرب قفك كتغو وحي لقربنا ولي ماذا إيمان أعماش اسمحي إيمانك سكو سمينيا إيمانك سوي بدينيا مركا أهل السنة محي قبان إيمانك إنو بطو يرادنا ضاعدنا واكبتا معصيتنا واكو يرادا طاعتنا واكبتا معصيتنا واكو يرادا مركا الشيخ وحيراده ولا تكو هاني مرجيا مرجئ لعوبا بالدين دينتي سكود الديله الا انما المرجي كان مرجئا بالدين يمرح وقولوا حتى هذا انما الايمان ايمانك قول هذا الويا لو دواقيه ونيه عقيده وفعل يعمل سو ما ركتي على قول النبي هذا الكنبي قدشي ايونا مصرح مثل ابو عديه وياه النبي عليه الصلاه والسلام عليه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه محله وذلك اضعف الايمان تا قلبك ان حمانته لغا انكر ايمانك ماشي ugu ضعيف سند وين ugu ضعيف سند maxaa laga fahmayaa inay jirto
ميلو كبت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا آياتها آخرين تودا إيمان بيكر ديان صومه معنوه هدي وحو أي بوحين هل حباها هاي ما بدن كرا وحقي في سماء بطا مركا إيمانك مرنا وبطا مرنا ويرادا قول ينية فعل نوية مركا وحو وينقص طورا مرمر إيمانك وكو يرادا بالمعاصي دنبيد وكو يرادا وتارة مررنا ينمي وحكوبتها بطاعة الله طاعديسة وفي الوزن ميزانك قديه سنيرجح إيمانك وراجح نقضاء إيمانك وبطا قول أهل السنة والجماعة ومدك مركا أهل السنة قول كودي كاوية وحير بان خوارج دي مرجاد وقول لابان دونا لكن مركو هراء عن ضمينا لسدح دا بيض النهري ودع عنك آراء الرجال وقولهم ودع عنك كتقوير أو كليحو آراء الرجال رجع أرجتيودو دي وقولهم هذا الكود إسكدف فقول رسول الله رسولك إلهي قولك سأولاها بون وأشرحوا أسقى أيانا قلبك واسع نما بدن قيب تنوحوك هذليا قفك إن لقرب مسلم كأه إن وحى أسقى الراعي ودليلك ونقنا إن نقدان كتابك إلهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم oo qofku si walba agtaada ugu weyn badan yahay oo indhahaaga ugu weyn yahay oo cilmigiisa aad ula dhacsan tahay waa in hadalkiisa aadan adigu qaadan ee waxaad qaadanaysa ay noqdaan hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam لأن الرجع هذا الذي هذا ربطه قول إمام يري الشيخ هذا الكوير الشيخ هذا الكوير إن لك لا رجحه أو كسحان لقاته كيف عن كعلم بدن لمله محل ليه هاي كي هذا الكيس وافق سيهاي هذا النبي عليه الصلاة والسلام تربية داس أيال الربا قف نفتي سإنه كتربية هدو مدرس يهاي ضدك وحبره برنا هدو يهنا مد داس الربا ضدك إنه كبر باري لكن ما أهن ضدك أديكو إنه كبر باري سو أما أدو هرسيدو إنه ضدك أديكو كقلدان كقول ضيدان oo waxa adiga agtaada saxda ka ah sax u arkaan ama madaahibta madhab kamida aad barta asaga kaliya inay qalidaan sida mutaakhiriintii asxaabul madaahibka kuwoodii dambe ay qabaanba qayba kamidihi waa waajib ilayhi qofku inuu culumada mid kamida uu qalido ayaga ra'yigooda uu qaato waajib weeyaan Abu Hanifa Imam Ahmad Malik Shafi'i mid kamida inaad taqalidata waa waajib ilayhi بل مدباك حق كسي درايا وحو يري ظواهرة النصوص إن لقاتها وأصوش كفر كمتا أما قال لماذا هو صاو جلالين كسارا قال لماذا كمتا النصوص ظاهر كذا لقات سادرتين أفرت إمام مد كمتا إن تقلدتها واجبة حتى تكبح لنا بدعولة بعض يسمى ليه مركو شرحايه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقول باطل وياه تربية الصحة هو مدي السلف في أمضان قيبت هذه هردتك أي كبر بارج جيران وشيخا وكمدها ضدك الرأي جودي أركتيده وده حق إسكتك نصوص تقاضو قولك الرسول صلى الله عليه وسلم قاضو ودعنك آراء الرجال رجع أركتيده وده كتب ويرو إسكتاف وقولهم يا هذا الكود فقول رسول الله رسولك إلهي هذا الكيسب أولى وأشرح أسجى أيا أوليسان وهبون أسجى أيانا نظيفنام بدن وقلبك نظيفنام بدن قفك ينقاته عد والبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كالصهرتي قول كيسة واللقاتها وانا الردية واللقو عليا كلنا راد ومردود عليه صيمام مالك براهين مد والبو أنك نقمده وحبان ردينا وانا الردية بوليه وانا لو جواب أنا وين جواب علينا إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام معه سجى هذا الكيس وإن لقاطع هذا الكيس وإن لقاطع وحن ربينا اللي يكون براروجية تربية حن باجرته والربينا دسكاء على لسان وأنا ظاهرة وياها ضمبي نقول عصب وحي لديه جري مقع مسلم معه صحوة الصحوة الإسلامية وحي يرادين أما براروجي إسلام صوفية دي بالله ديري
taqliidkiina waa lagula dagaalama ma taha mase maaha madhabkay qallidanayeen wixii madhabka dadka anagu maalan waxay ahaayeen yiraahdo shaaficiyana waxa alla wixii madhabka ku jiray oo nusuusta yani ka soo horjeeday ama aan daliil ka lahayn gaashaanka loo daruuro banaanka la dhiga Soomaali ayadoo laga yaabo hadalladaas qayb ka mid yihiin in ama saxaabada ay ka sugan yihiin ama aimadii salafka qaar ka mid ay ka sugan yihiin waxa loola dagaalamana maxay ahayd kitaabka iyo sunnaha la qaato ma taa masama tayib waana sawaab sax wayna ahayd laakiin ra'yi kala waayahan dambe bedelay oo waxa soo kordhay ظاهرة كله أو ولي بدك أهل الحق دحدو ده كدعضي ومحي تهي أنا كشيخ بالله هاي شيخ يجاسي والله ما تابتان مقال دماء أدي ورمت بالله ده هاي والله ما تابتان مقال دماء أيقولوا يسنقدنا يعني وأيجي بيسردنا هاي أدي كمركه هدي أنت كوجو أرضا oo kugu sheekha ah hadaan sida ay leeyihiin aanan xaq u arag ama baan ila warniyo sheekhu masaladan kuma saxna ahlu bid'a la haleeshiinay mubtadi' baa noqonay bid'oolan waa daahira hadda jirta oo ahlu sunnah waliba dhexdooda ka jirta ahlu sunnah dhexdooda daahira ka jirta weeyaan waana nasiib darro waxa laga yaabaa adiga in ahlu sunnihi lagaaga saaro شيخ فلان يا أردديسو فكر كأي قوان ما أذن آمنين أما واحد تري الشيخ مسألة صحكم معها صواب معها أنت أنا أهل السنة الدائرة دي أهل السنة هذا قبح ذا اللي يرادوا بدعوا على طاي عكسي من بركة أنت استاجوا أيها واحد لا يهم مسألة ابن عباس بقول كان قوا أما عائشة قبتها صحنا ما هين أما وحن بلايها إمام الشافعي مذهب كيسا سيدا ساكوت الله إمام الشافعي سيدا أبو قبي دليل كنا أساس معها واحد بسنة يا لمارك ولو مع سنة شيخ المعاصر كهدد شوقه هذا نلال نولنا مسألة هو كوكل دم لما أقلا لما أقلا مسألة الشيخ المسألة هو كوكل داي هلا سكيل على مركب أنا واحد الضوء إلهي كوكو الضوء صدم حيه كتاب كإلهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيوه فهم كي سلفكي صحابتي تابعينتي أتباع التابعينتي فهم كودي كاسا لقوق الضون صدي مد مركب معاصرة انت دي إن الإمام الشافعي التغليدو ترى أنا مذهب كي يقول الشافعي إنا تراه أما حنبلي بانها إمام مالكي أنا انت دي وداد معاصرة هدر كان جوغا أركتدي صور من صح وضا قاضو يالا قاعد عندينك كمد معه دينك كمد معه وأنا أفكار جرته وهدي أربح قشان وحبضنا وإذن كذا صباح كرتوت كأوجان كرتان على كل نوع لقوا الضن صدي إلهي سبحانه وتعالى لقوا الضن صدي والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كتاب كإلهي السنة أمة سلف كودي يصدق حديق قرنية وقف فضل قبضنا تسير يفهمين أنو فهم هذا إلهي سبحانه وتعالى مدة سوي مدة هذيك لقوا الضن صدي لقانا الرب عد كلا الرأي كذا لقوا ما الضن صدي قف كان مثلا وقلدي هاي بالليري قرضات بوكر دعي كتاب كي السنة ده الله بندق قلدات كيسة هذا وقلدات كل شيء شيء خاجي وقلدية وكتاب كي السنة هاي عديان حدي وحو كلية أركتية آراء جديدة أيهين أحب دقها ودقين عدي دونتها كوكو نعضو عدي دونتها كوكو جعلات وحو هدي دينيهين محابايا نجعليس مقلان نجعليس مقلان أنا أئمة المسلمين قديما وحديثا شافعي أحمد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كل قد وجعلنا صوما من نصب أنا قال دحين محن جعلنا ودين صوما ودين شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أئمة عصر كان الشيخ الباني ابن عثيمين ابن باز الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليهم رحمة الله أجمعين وانجعلنا لكن محن قال دحين أدونا نمصين نصب قاري أبترسيمة قارهن وذاقنا مجرته لماذا؟ والدين صومه وحنا نسكت جعلاني هذيك مركز الدين كاكوها جاي دين كاكوها جاي خوفك الدين كان لحظنا قف كان هو بيرب الله خوفك السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم هايستنا وله يجعلك وكلها بلغت دنيا مثلا هذا مركز لقوا برانو ولا تكن من قوم
qolaha kamid ahaan buu yiri oo talahaw ku dheeleen oo ka mashquulay bidiinihim diintood oo fatadcana markaana aad dacni soo durto fi ahli alhadith hadithka nabiga ahlkiisa wa taqdahu aadna ceebays munaafiqiinta iyo fusaaqda sha'nigooda waa inay diinta fududeystaan lahwiga waxa kamida adigu diinti inaad ka mashquusho oo aad uga mashquusho waxyaabo bidca ah diinti barashadeeda iyo daacaadka iyo acmaashii wanaagsaneed ku dhaqankeeda haddaad bidca uga mashquusho talahu bidiinihim baad soo gelaysaa kuwa sheekhu uu kaaga digaayo talahu bidiinihi hameenkii oo dhan baad xadra ku soo jeedaa hameenkii oo dhan xadraad ku soo jeedaa salaadii subaxna waad ka seexat walaa taku min qawmin talahu bidiinihim baad soo gelaysaa iska ilaali marka qofka calaamaati ahlulbidacna waxaa ka mida dadkii xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam xambaaray duridoodii iyo dacnintooda iyo wax ka sheegidooda abu xaatim araazi muxuu leeyahay min calaamati ahli lbidac alwaqiicatu fi ahli alahar calaamaadka ahlulbidaca waxaa ka mida ahlulaharkii iyo dadkii xadiidkii nabiga calayhi salatu wasalaam ahalka u ahaa in lagu dhaco wax laga sheego walaa taku min qowmin qolaha ka mid noqon buu yidhi oo talahu bidiinihim diintooda lahwi ka dhigteen oo fatadcana markaana aad dacniso fi ahli lxadiidi ahlulxadiidka aad dacniso oo wataqdaxa ayaga aad dirto idaa mactaqadta haddaad caqiidayso addahra noloshaadoo dhan yaa saaxibii saaxiibkeeyow haadihi manduumadan waxa ku jira fa anta adigu calaa khayrin khayr dushii baad ahaa tabiitu mid ku barya wa tusbixu ku waabariista idaa mactaqadta haddaad caqiidayso addahra noloshoo dhan yaa saaxibii saaxiibkayow haadihi midan yacni waa manduumadan waxa ku yaal lianna wax alla waxa tixdaa shiikhu uu ku soo sheegay kulligood daliil bay ku qotobeen fa anta adigu calaa khayrin khayr dushii baad ahaat khayrka oo tabiitu aad ku hoyanayso wa tusbixu kuna waa bariisanayso oo waxa meesha ku sheegan nubda ama khulaaso ictiqaadkii ka mida nusuustu ay sheegeen caqiidadii salafkii ee qayb ka mid oo aad u wanaagsan buu sheekhu manduumadan ku sheegay erayadeedu sahlan yihiin abiyaadeedu ay kooban yihiin erayo kooban abyaad sahlan intaas ayuu sheekhu ku sheegay marka qofkii caqiideeye oo waxa uu soo sheegay caqiideeye waa qof khayr ku dul sugan khayrkaana la rabo inuu joogteeyo oo marnaba uunan faaruqin manduumadii marka ama tixdii sheekhu uu tiriyey dhowr iyo soddonka baydaheed halkaabay ku dhammaatay hadda xifdigeeda waa la iska rabaa in la xifdiyo sidaasoo kalena waa la bartay ee lagu camal falo oo la caqiideeyo waa kitaabka iyo sunnaha ictiqaad laga soo qaatay khawaarijta iyo murji'ada ayaan xoogay ka hadalnay ama faahfaahinay hal meel baan marka murji'ada uga laabanaya murji'ada horta waxaan u malaynaa in la fahmay caqiidadoodu waxa ay tahay ictiqaadkoodu waxa uu yahay ictiqaadkooda nuxurkiisu wuxuu isugu imaanayaa murji'adu waxay leeyihiin acmaasha qofku uu la imaanayo iimaanka ka mid ma aha acmaashu hadday xumaan tahana iimaanka wax u dhibi mayso hadday daacaadu ka tegay ay tahana iimaankiisa wax u dhibi mayso waa la fahma soo maaha waxaa nasiib darro noqotay a'immada muslimiinta kuwoodii ajillada ahaa casrigan joogay ugu waaweynaa in dad aaminsan fikri alkhawaarij aaminsani inay yidhaahdaan waa murji'o waa murji'a inay yidhahdaan oo sheikhu alalbani calayhi raxmatullah imaamka farisulmaydaanka ah oo wax muranihi ka taagnayn mujadid alcasri inuu ahaa boqolkii sano oo lasoo dhaafay mujadidkooda inuu ahaa aysan ku muransanayn wax murani aynan ka taagnayn ahlulcilmiga dhexdooda aynan ku muransanayn ayaa waxaa la yidhi murji weeye waa murji sababtu maxay tahay masalada meeshan aad ku soo qorteen aw alxukmu bigayri ma anzala allah
ayuu kala bixiyo kala saaray uu yiraahday wax gaalnimaana way ku jiraan waxaan gaalnimo ahayna way ku jiraan intaasuu murji ku noqday marka cid alla cidii kala saarto oo tiraada mas'aladani waa mas'alo tafriiq iyo kala saarid u baahan kufri marka la yiraahdo fihi kufrun akbar wa kufrun asghar baa jira ku gaalnimo weyn iyo mid yar baa jirta xukm bighayri ma anzala Allah mid weyn uu noqon karaa mid yarna uu noqon karaa qofkii sidaa yiri murji buu noqday waa yaani waa xaaditha cusub on hore u jirin saxna ma irjaaga macnihiisu waa ka qofka murji'ana intaasaad ka fiirinaysaa acmaashi iimaanka ma ka saara mise kama saaro asul iimaan acmaashu ma ka mid tahay mise ka mid maaha marka hadduu yidhaahdo musamma aliimaan acmaashu kuma jirto laa shaka annahu murji inuu murji yahay wax shakiya ma leh laakiin sheikhu alalbani calayhi raxmatullah murji'ada iyo khawaarijta isku sibuu u radinayey almurji'a waalkhawaarij murji'ina maahay masalada marka haddii halkaan uga baxna kitaabkii masaladan ما حقيقة توحيد الحاكمية الحاكمية حرت حكم كإلهي بقى اسكاله مرنا الربوبية كتيرة مرنا الألوهية كتيرة واضح زوما انتي سبضنا وحو كمدي هاي توحيد الربوبية كمدي الحكم توحيد الربوبية أي كمدي هاي هدفك انت الله صوصوعي توحيد ليلة توحيد الحاكمية اللي سمينا رقدا لما الله صوبحي وسياسيين وهدفك ودو الدين وصنا هيني سياسة دي كرسي الضونة عدة يمركا كرسي كلاك عيان وهم بيكون ردانا يرادان توحيد الحاكمية وقلضي هو الضاغوت مركا توحيد قالوا تاغان وتوحيد أقسام توحيد ككمل توحيد الحاكمية اللي يرادوا كل علماء السنة ما أين الشيقين كامرك هلكا وجودو لكن واقف هذا يروي توحيد الخالقية توحيد الرازقية يعني توحيد التدبير هذا سيدا يروي لم يتعي هذا سيدا يروي أي لم يتعي ووحو كمدي هو قيب الربوبية ده كمدي ويا قيب الربوبية ده كمدي ويا الحكمية طيب الحكم بغير ما أنزل الله وحي إلهي يسود جي وحان أهين إن وحلقوا حكما وذنبي أن يرين وعظيم أدوين بلان وذنبي أن يرين لكن بل يري هل متكون براروجا مركا اللي يرادو وحن كي إلهي يسود جي وحن هاي وحلقوا حكما وذنبي ما لها مدحضه أي دقنتها هاي وضدك اللوغة تليو قلبي قاقا يسنكو صردعنا وحن قلبي قاقا كو صردعي النفط هذا هو قوه الرئيس naftaada ha ugu horeyso waxa ilaahay uu soo dajiyay labiskaaga kamida sidaad u labisan lahayd salaada saad u dukan lahayd baa kamida saad u soomi lahayd baa kamida yaa dhihi karo waxa ilaahay soo dajiyay kamid ma ya mise siyaasadii aan nagasho xaakimiyada oo waxa ilaahay uu soo dajiyay waxaana wax lagu xukumi karo markii la yiraahdo madaxdan sawirana kaliya madaxda kaliya qalbiga naga ku soo dhacday صح ما قفك النفتي سلقا بالله وحلقا ربا إنه وحي إلهي يسود جيوكو حكم وحاركا سوى قرحيرة وصلاة جماعة كدوكا ودمرك محارمتي سانا هنا أجنبي حمدك كو قادة السلامي وسروال كيسو ديري هيا شلالة أبو جوغو عرب كيسو وسروال كيسو نولك وجيتمي oo gaaladii isu ekeysay ayaa wuxuu leeyahay madaxdu gaalo weeyaan oo maxay biyeen xakamu bighayri ma anzala Allah wixii alla soo dajiyay waxaan ahayn bay dadka ku xukumeen qofka asaga is xukumay asaga la fahantiis muslimnimo meel uma taalo ma taamsama laana adiga inaad labiskii sharciga aad ka dhigto wuxuu alla soo dajiyay ma kamid ba mise kamid maahan waa kamid weeyaan naftaada marka ku bilow خلاصة مركا waxay tahay in lagu xukumo wixii Ilaahay soo dajiyay waxaan ahayn wax lagu xukumo ama loo xukun taga waa dambi cadiim oo aad u weyn badan diinta islaamkana xaraan ku ah laakiin qofkii sameeya oo dambiga ku dhaca
diinta islaamka bannaanka miyuu ka yahay mise kama ah diinta islaamka bannaanka ma ka yahay mise kama ah diinta islaamka bannaan wuu ka noqon karaa kamana noqon karo saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaamna tafsiilkaas iyo kala bixintaasi way ka sugan tahay gaar ahaan ibnu cabbaas radia allahu canhu ardaa waa haabito way ka sugan tahay oo waxaa ka mida xukunkan haddii qofku wax ku dhaqo ama wax ku hago wixii alla uu soo dejiye waxaan ahayn diinta mar buu uga bixi karaa mararna ugama bixi kara hadduu yidhaahdo waxa meesha aniga xukunkaanaan ku xukumayo oo ilaahay uunan soo dejin asagaa meeshaan munaasab u ah kii ilaahayna ma habboona kan baa markaan ka wanaagsan oo xilliga la jaan qaadi kara qofkaasi waa qof gaaloobay diinta islaamkana bannaanka ka jooga waa markii shuruudiyo mawaanicdii laga helay markii shuruuddii u ofsado mawaanicdiina laga waayo ayuu noqonaya haddiise hawa ku xambaartay ee kitaabka ilaahay waxaan ahayn wax ku xukumayo isagoo og kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay waajib tahay in loo xukun tago qofkaa lama dhihi karo diintii buu ka baxay wuxuu la mid yahay midkaa surwaalka anqawyada dhaafsiiyey ee aan lahayn inaan anqawyada dhaafsiiya iyo xalaala anoo ogsoon in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay oo dembi ay tahay anoo og bay haddana xalaal ii tahay leanna xilligan la joogo anqawga ka kor lama geyn karo waqtigaa diidaya hadduu yidhaahdo iyo midkii halkaa inta fadhiistay gacangooyadii yidhi waxaan ku bedelay xabsi inaan geliya ii soo baxday qofkan waan xerayaa war hadda gacanta maa ka goys ilaahana gaarsiiya dad kitaabka ilahi waa ku xukumaynaa waana ku dhaqi doonnaa ayuu ku leeyahay kanna wuxuu leeyahay maya waa iska laabi doonaa hadduu ilaahay yidhahdo waa sibuu iga baxsaday oo kuma talagelin intaa hoos fiiriyo kaasuna sidoo kale markuu leeyahay labadooda mid gaara laguma arko waana isku xukum marka macaasidii iyo dunuubtuu ka mid yahay alxukmu bigayri maa anzala allah dembiyaduu ka mid yahay sida dembiyadaba dadka qaar hadday sameeyaan ugu gaaloobayaan ba asagana loogu gaaloobayaa wallahu subxaanahu wa tacala aclaa waclam subxaanaka bixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رب واجعل نهجنا نهج النبي وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يا رب وفقنا بعلم نافع واهد العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد